xiisadda siyaasadeed ee Somaliland oo sii adkaatay mucaaradka iyo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi oo isweydaarsaday hadallo xanaf leh oo aad u adag iyo walaac weyn oo laga qabo in mar kale rabshado ka dhacaan Somaliland. hadalka ugu adag ayaa waxaa jeediyay gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Xaaji oo si toos ah u sheegay in madaxweyne Muuse Biixi yahay gacan ku dhiigle wuxuuna shir jaraa'id oo uu qabtay ka sheegay hadalkan. joog buu yiri uu istaagay soo isla feel ka gaar xabad buu ku dhuftay inankii uu dhintay oo kamid ahaan jiray ciidankii uu xukumi jiray Muuse kadibna waan isweydiinay wixii iga sheekeeyay sheekada anigu aan khudbadiisa aan la yaabanaay dhacdooyinkii mid ka daran buu iga sheekeeyay oo ah maalintii awaare loogu soo xidhay tababarka oo inankaas uu kamid ahaa dhalinyaradii lagu soo daray inay yimaadeen meel dibile ku dhow markay yimaadeenna galabnimadii inuu fayliyay Muuse oo siriga ugu dhuftay soo fayla inan baa ka habsaamay faylkii joog buu yiri uu istaagay soo isla feel ka gaar xabad buu ku dhuftay inankii uu dhintay. hadalka gudoomiye Xirsi ee ah in madaxweyne Muuse Biixi dilay askari ka tirsan ciidankii uu xukumi jiray waa mid weyn oo u baahan xaqiijin iyo in laga fiirsado eedda intaas leeg waxaana ka dhalan kara dagaal siyaasadeed oo si shakhsi ah u dhexmara Muuse Biixi iyo gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Xaaji. gudoomiye Xirsi hadalkiisu ma wadan cadayn iyo markhaantiya mana uusan oran anaa goobjoog u ahaa ee wuxuu ahaa waa laygu yiri taasi oo muujinaysa fudayd iyo siyaasad xumo waxaana ka dhalan kara in maxkamad la soo hor istaajiyo gudoomiye Xirsi si kiiskan wax looga weydiiyo. dhinaca kalena wali wax hal ah lagama gaarin khilaafkii siyaasadeed ee u dhaxeeyay xisbiyada mucaaradka Somaliland iyo xukuumadda xilli uu dhawaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sheegay inaysan aqbali doonin mudaharaad dambe uuna ku tilmaamay dambi qaran aanu dhacaynin oo aan la ogolaanin mudaharaad gobolada magaalo qura iyo tuulada ma ka dhaca waa laga hortagayaa oo qaranka lagu burburin maayo mudaharaad aan sharciyeysnayn oo fidmo wada waa laga hortagayaa waana dambi qaran waana wax burburinaya ninka mudaharaad soo qaada ma aha dimuqraadiyad loo gaban maayo xorriyatul qowl loo gaban maayo labadaba isaga soo dhumanaya qaranka nabadgelyadiisa iyo dadka dhimashada laga dhaawacooda laga ilaaliyaa kowka. hadalkan madaxweyne Muuse Biixi ayaa yimid kadib markii ay dhawaan banaanbaxyo rabshado wata ka dhaceen Somaliland waxaana banaanbaxyadaas ku dhintay 6 qof halka ay ku dhaawacmeen 60 qof oo kale oo u badan ciidankii xakameynayay banaanbaxa. dhinaca kalena mucaaradka Somaliland ayaa wada kulamo ay ku naqdinayaan xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxayna wali ku goodinayaan in ay sii wadi doonaan banaanbaxyada. dhinaca kalena odayaasha dhaqanka Somaliland ayaa wada kulamo iyo isku imaadyo xoog leh oo ay kaga tashanayaan sidii xal looga gaari lahaa khilaafkan siyaasadeed ee u dhaxeeya xisbiyada mucaaradka Somaliland iyo xisbiga talada Somaliland haya ee kulmiye. daawada sidee waragtaa in lagu xallin karo muranka iyo khilaafkan siyaasadeed ee ka dhex taagan xisbiyada Somaliland aragtidaada qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag.